تينا جودن كأنه حلقوا معمولا محي البند السابع بندقة الضباط يونايتد نيشنز كحير كيساهو بند السابع معني سوا محي وقفكو اسمه معمول كره هلا معموله قفكو اسمه معمول كره الماء يرى عرورته به مركود انت محل هذا حولي اسمه معمولا كره وحوب هي محي وصي عد معموشه وميل جارسيسه بندقة كان وحو قرية وانتهى أسكر ما يالن كران ويستيل يعني قرية يان لقي مني دولة ماذا حبتو دم يلا شنكران عد كلها ويلالسو وحكستا سوقبو وحمس بين كرتيد وحمس بين كرتيد إلى يو وقلادم ويانه هذا عيدا كلاين نقول لقوا حكاني وحني معها شعيل لقوا قبو هو destabilization وين تكشرته إن دولي جا ساكعين سوماليا مالها يرن نبدو كشران ومالها لغا يابينها يجا اسكرتو دو يمنين يا انت يجا لا سوتا انا كو بدنين كل كما مدنه ايا انت نبدو كجرتو قضبك الصدحات السبسيرشن ثيوري قو تلماما وحويان وحيدان كرايسيس نورماليزيشن تطبيع الازمه قفكو مركز دنب بلايده وينو اركاين نولشا كميتي halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan qof Soomaaliga wax badan iba jiraan ma arko maalinta qarax yar dhacaw isla wallahi dib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka hadii la gaarsiiyo dhibta inuu la noolaan karo haduu gaadho halkii la rabay ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka in badan buu dadkan kaga digay waxaan tilmaamaynaa ma aha wax wada tilmaamayo waa waxay istiraatiijiyad العالم ku dhigaan مثلا ajira buugu qoray nin Chinese 2500 sanadood ka hor noola sanad Zobaa la yiraahdaa oo philosoph general laha buugiisu waa weero kooban waxaan filayaa 600 iyo dhowr statement oo kooban inuu yahay culimada istiraatiijiyada dunida daraasayso dhan baa loo dhigaa militariga dunida oo dhan baa loo dhigaa waa kalimaad kooban oo ninka kani markaa waa nin philosoph ah faniga istiraatiijigana looga dambeeyo waxa uu yiraahdaa in ikhdaac al-adu min dun qital huwa arfa' imtiyaz bida adawga inaad jabiso oo ku hoos yimaado adigoo aan la diriirin waa heerka ugu sarreeyay la gaadho buu yiri wal amal al askari هو أقل طرق جودة لإخضاع العدو بيرها military inaad cid u jabisana waa qaabka ugu hooseeya cadow loo jabiyo bulay yani inaad ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liitaba waa farsamada ugu liidata laakiin farsamada u sarreysa waa maxay inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin adoon askari kaaga dhiman ama waxba kaaga dhiman inaad jabin karto ولذلك بوحو الماما إن الأعظم بين القادة ليس المنتصر في 100 معركة بل ذلك الذي لا يحتاج إطلاقا إلى القتال لينتصر هل ييجا أما جيسيجا وين هجامية يلا قدام بينكرا ما هبوا يرينك بقول قابود جوليسته وان كان دجال بوبا هنسيو جوليست كان دجال كو أوبا هنسيو جوليستو وحن قضية نوت المام يا مركا وحيتي إلهي وحنا لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الاعتماد على نفس هدينو يلن كري وينو وعدك لينو دجس خطط كان يرود مابك يا ماشينو مرينو أبي تقوليسن ميسن waxaad guulaysan kartaa iyo qura markaad adigu awooddaada iyo aqoontaada iyo tamartaada iyo dalkaaga iyo xoolahaaga iyo dhulkaaga waxa ku jira ama kor saaran markaad adigu ku xisaabtanto ee adigu taas aad blangaraysato waad guulaysan kartaa ama cid kale ay wanaajinaysa warka gaalada oo dhan haddaan soo dhaafo إلهي كتابك القرآن كيسود كن يافر بغلو سندود وحين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ما جعل ربي ليه كوا قال ذا يا أهل كتاب يا مشركين بس قدر كوا قال ذا ما جعل أن ينزل